الرحمن الرحيم. إخواني في الله، waxaa ina soo haraysay bishii barakaysnayd ee shahru ramadaan, shahru lqur'aan, shahru lmakfirati waalgufraan. bishan oo kale waxay ahaayeen salafkii saalixa ahaa kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka barya 6 bilood ee ka horeysa ramadaan inuu ramadaan gaadhsiiyo. 6 bilood ee ka dambeeyana waxay rabbi ka weydiisan jireen inuu ka aqbalo cibaadadii ay sameeyeen. waxaa isweydiin mudan, bishan see baynu ugu diyaar garownaa? camal walbaa wuxuu u baahan yahay diyaar garow. waxaan rabaa inaan dul istaago 3 qodob oo runtii muhiim ah, ruuxa mu'minka ihina uu u baahan yahay inuu sameeyo ramadaanta ka hor. kan koowaad waxaa weeyaan inuu shaksigu bilaabo isticdaadka iimaaniga ah, sida uu iimaankiisa bishan u kororsan lahaa falowgeeda inuu galo. nafta bini-aadamka rabbi tabaaraka wa tacaala isagaa abuuray una aqoon badan. alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir. haddii hal mar cibaadooyinkao dhan lagu sii daayo, isla markaa waxay keentaa wax la yidhaahdo futuur, iyo inay wixii wadi kari weydo ay ka caajisto. sidaa awgeed, haddii nafta waxaas in samaynteeda la baro la rabo, waxaa loogu sameeyaa isteeb. xumaan haddii la rabo in laga kaxeeyo oo laga jarana sida oo kale khuduwaad loo maraa jira. waxaynu ogsoonahay alla tabaaraka wa tacaala markuu khamrada xaaraantinimeynayay, hal mar miyaa la yidhi khamradu waa xaaraan i ka fogaada? jawaabtu waa maya. markii hore waxaa la yidhi khayrkeeda iyo sharkeedaa badan, nafcigeedu aada buu u yaryahay, ismigeedaa ka badan. haddana waxaa la yidhi waktiyada salaada aada tukanaysaan ha u dhowaanina. kadib baa waxaa la yidhi waa rijsi khamradu ee ka fogaada. khuduwaadkaasi maxay na tusinayaan ikhwaanii fillaah? tahyi-a, diyaarin. nafta markii xumaan laga goynayo in khuduwaad loo maro. markii wanaag la amrayana sida oo kale. arkaanta islaamka waxaa ugu horreeyey tawxiidka. nebigu calayhi salaatu wasalaam 13 sano ayuu tawxiidka dadka ka dhaadhicinayay. uma salaadii, uma soomkii, uma zakaadkii, uma xajkii. taasi waxay na tusinaysaa inaynu nafteenna min al-aan sii diyaarino. oo maxaynu kusii diyaarinaynaa? 1, inaynu isku dayno qiyaamuleylka wa in qalla haba yaraadee. ramadaan markuu bilowdo adigoon horay u tukan jirin 3 ragcadood, xataa haddaad tiraado tahajudkan iyo taraawiixdan kaga bilaabaya, 10ka cishe ugu horeeya waad aragteen masaajidadu say u camiran yihiin, soo rutay maaha? haddana dib bay 15ka dambe dadku isu soo guraan. 10kii nuxurka ahaa ee lafdhabarta ramadaanta u ahaa waa 10ka ay dadku ugu cibaadada yaryihiin. shaydaankuna hadda nin meel iska fadhiya ma aha, waa nin xarbi calani ay nagula jira. 10kaa dambe ayuu caruuraha iyo reeraha iyo dumarka kugu kicinayaa, dharkii ciidda la raadin, alaabtii caruurta ku baashaari lahayn baa la 10kii dambe baa halkaas ku baaba-aya. wuxuu sheegaa imaamka ibnulqayim raximahullah arrin cajiiba, bal arrintaa u fiirsada. wuxuu yidhaahdaa rabbi tabaaraka wa tacaala markuu shaydaan inooga digayay ma odhanin shaydaanuun iska ilaaliya. wuxuu yihi laa tattabicuu khuduwaati shaydaan. shaydaanka khuduwaadkiisa, tallaabooyinkiisa ha raacina. shaydaanku muxuu kaa rabaa? 5 tallaabuu kula soo marayaa, 5 khudwuu leeyahay sida ibnuqayim ku tilmaamayo. number 1, wuxuu isku dhabar jabinayaa sida uu rabbigii ku abuuray
kaaga weecin lahayd kaafir u noqon lahayd walciyaadu billah muhiimadiisa koobaad waa taa hadduu ku guulaysan waayo taa khudbu haddana soo dhaafayaa wuxuu ku dadaalayaa sidii cibaadadaada oo dhani mid mubtadaca ah oo bidca unbuu kuu macaaneyni halkaasaad xadrayni ood khushuuci ood daadani ood iskala waxaad isu haysataa kii rabbi ugu dhowaa inaad tahay wamaca daalika lasta calaa shay waxba ma haysi waa meesha ay culimmadu yidhaahdaan macsiyada iyo bidcadaa sii dembi weyn ruux haddii macsiya inta laga soo saaro bidco la geliyo waxaa u dhaantay bidcada inuu macsiyadiisii ku jiro liannahu tani waa mid ka xeel dheer oo ka khatarsan naftu waxay u malaynaysaa inay cibaadaysanayso rabbina way ka fogtahay waa khudwadda labaad haddii taa uu kugu kari waayo rabbi sunnaha ku waafajiyo iyo hadyiga nebiga sal allau alayh wasalam khudwo saddexaad buu soo gelayaayo wuxuu isku dayayaa siduu muxaramaadka kuugu fudaydin lahaa kuugu macaaneyn lahaa uu kuu horwadi lahaa shahawaadkii nafta waxa weeyaan waxyaabihii ay ilaahay iyo tabaaraka wa tacaala nebigiisu nahiyeen taa hadduu kugu kari waayo waajibaadku kaala dagaalamaya wixii alla kugu waajibiyey ayuu kaala dagaalamaya markaasaa waxaad arkaysaa adiga oo waxyaabihii waajibka ahaa kaga mashquulay waxaan waajib ahay zakaad baa lagugu leeyahay waxaa laga yaabaa xoolahaagii meelo kalow inaad ku bixinayso waxaa lagugu lahaa inaad faralkii kusoo tukato maca aljamaaca wuxuu kuu macaaneynayaa salaad jawaantii waxaa lagaa rabay birul waalideyn inaad la timaado wuxuu kaaga mashquulinayaa hawlka waajibaadku kaala dagaalamaya taa hadduu kugu kari waayo wuxuu haddana kugu mashquulinayaa waxii laga muhiimsan yahay bimaa huwa ahamu minhu ramadaanta oo kale tusaale dadkeennu waxaynu aada ugu dadaalaa taraawiixda maxaa laakiin taraawiixda ka muhiimsan waxaa ka muhiimsan 5 salaadood awqaadeeda in lagu ilaaliyo nabiga sal lla alay wasalam saxaabigii markuu weydiiyey ayu lacmaali afdal qaala wuxuu yihi asalaatu fii waqtiha taasuu kaaga mashquulinaya markaa intaa haddii uu kari waayo wuxuu ibnulqayim leeyahay wuxuu kugu soo dirayaa cid walba uu manfad iyo meel uu kaaga soo galo uu u heli karo awlaadaadu kaa soo geli xaaskaagu kaa soo geli tolkaa iyo qaraabadu kaa soo geli xisni waa inaad gasho buu leeyahay iyo dhufays aada markaa halkaa dagaalka kaga jirto dhufaysye haddana 4 ayuu tiriyaa al-aadaab baa ugu horeeya kadibna saas u wadaa alyaqiin baa dhufaysyada iyagana u dambeeya ikhwaanii fillah arrinta koobaadi waa al-isticdaad inaynu ramadaanta insha allahu tacaala u diyaargarano inu nafteenna diyaarino naftu waa sida ilmaha yar baa layidhi muxuu odhan jiray xakiimkii wannafsu katifli in tuhmilhu shaba calaa xubi aradaaci wain taftimhu yanfatimi waxaad naftaada 40 cisho ku adkayso maalinta dambe automatic ba ula qabsanaysa alamru thaani oo loo baahan yahay ramadaanta inaynu insha allahu tacaala kaga faa'iidaysano waxa weeyaan in aynu qiraa'atu lqur'aan aada iyo aada u badino waa shahru lqur'aan shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan weeye arrinka saddexaad ee kusoo gabagabaynaya waxaa weeye bishan oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u gacan furnaan jiray cabdillaahi bni cabbaas fii saxiixi albukhaari wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakunu fii ramadaan xiina ya'tiihi jibriilu fayudaarisuhu alqur'aan falarasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ajwada min alriixi ajwadu ila alkhayr min alriixi almursala aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam dabayshuu uga orod badnaa xagga khayrka idan bishan oo kale sadaqaadka qaraabo xidhiidhinta iyo ka warhaynta ehelada inaynu aada iyo aada ugu dadaalo wabaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran